tobanka shay tilmaamay qofka maamulaha inaanu professional ahayn si loo koobo 2 minute waxaan ku soo koobayaa tobanka qalad ay galaan maamulayaashu dadka managers qaladka koowaad waxa weeyaan anigoo si degdeg ah u oranaya al-ihtimaam bitafaasiil ninkii maamulaha inuu dhammaan shaqadiisu noqoto inuu detailskii hoose shaqada uu ka shaqeeyo oo maalin kasta shaqaale hoosaadku waxay ka shaqay lahaayeen isagu ka shaqeeyo soo iloobaya big picture-kii istiraatiijiyadii policiyadii xiriiradii wixii kala soo ilaabaya walaadad la galo qaladka labaad waxa weeyaan al-idaara bil-irhaab qofku inuu ku maamulo cabsi hebel waan ku eriyaa lacagtaan ka jaraya waan ku hoos baan ku dhigayaa shaqada hadad qaban weydo oo marka cabsi uu ku maamulo gebigiis maamulkiisu noqdo qaladka saddexaad waxa weeyaan cadam al-xuduur inuu isagu soo baxaadil waayo meesha goobtu ka shaqeynay oo markaas la waayo qodobka shanaad waxa weeyaan cadam tacaatuf maca al-ummaal inuu nimankii shaqaalaha uu runtii la tacaatuf waayo mid baa xanuunsanaya mid baa hooyadii dhimatay marka hooyada baa dhimatay iraadana iyo dhima lahe laakiin intaad maqad reportkii soo qor waqaladaadkii runtii galaan qofkuna uu nacaya qof la tacaatuf waayo ka shanaad waxa weeyaan cadam taxfiis in qofkii dhiirigelin waydo dhiirigelin qofka shaqaale kama soo haro qaladka lixaad waxa weeyaan cadam muxaal irshaad dadka qaar baan shaqada u caday shaqadii haddii aad siday tahay ugu sheegi wada hagi weydo qofkaasi aakhirka waxa uu ku nacaya qaladka ka ku sii xiga cadam alwuduux ninkii maamulaha meeshu socod aan garanay vision aan lahayn ahdaaf aan lahayn iskuulku sanadkan halkuu gaaraya shan sano haduu ka gaar waxa saanay jirin qalad ku soo xiga waxa weeyaan at-tafdiil bil ummaal shaqaaliin uu kala jeclaysto uu hebel soo yara dhaweysto kan yara fogeeyo mid la saaxiibo mid shaah la cabo midna uu sharaabka la cabo waxa kale qaladka maxamed an-naqd al-aam ma ku naqdi jeedinayo iyagoo wada fadhiya inuu hebel adigu ninka ugu xumbaata oo la wada maqlaayo ama ardayda ay maqlayaan ama shaqaaliin kala maqlayaan taasina waxaan caabkeena ka ugu dambeeyana waxa weeyaan cadam taqyiim isagoo qiimeyn shaqaalihiisi oo qofkii sanadkan wax qabtay aan qiimeyn oo runtii wuxuu aqalmaayay aan siinin qiimeyn la'aantaas waxay keentaa qofkii shaqaalihi inuu isu dhigto inuu istiraado arad cidna ku qiimeyn meesha maxaad ka daalaysaa tobanka qalada ugu waaweyn runtii kutubtuna ay sheegaan waa tobanka aad baan idinku mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh